Dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa war ay si wadajir ah u soo saareen Salaasadii shalay ugu baaqay dhammaan dhinacyada Soomaaliya inay si wadajir ah uga wada shaqeeyaan sidii Soomaaliya looga qaban lahaa doorasho xor ah oo waqtigeeda ku dhacda. Qoraal saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in sharciga doorashada federaalka Soomaaliya ee ay dhowaan ansixiyeen Golaha Shacabku, isla markaana uu 20kii bishan saxiixay Madaxweyne Farmaajo uu qayb ka yahay hanaanka doorasho ee aasaasiga iyo lagama maarmaanka u ah qabsoomidda doorashooyin qaran oo u suurto gelinaya in tirada ugu badan ee muwaadiniin ah ay codeeyaan. War-saxaafadeedka ka soo baxay beesha caalamka ayaa sidoo kale lagu sheegay in saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ay garwaaqsan yihiin mas'uuliyadda saaran guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka si uu u hirgeliyo sharciga doorashada. Waxay kaloo sheegeen inay carrabka ku adkeynayaan sida dhaqsaha ah ee looga baahan yahay dhammaan dhinacyada ay hawshu khusayso oo ay ku jiraan dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada, baarlamaanka federaalka ah, xisbiyada siyaasadda inay wada shaqeeyaan iyagoo taageero ka helaya guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo gudageli doona hawsha hirgelinta sharciyada doorashada. War-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in saaxiibada Soomaaliya ay carrabka ku adkeynayaan in qabsoomidda doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo dhaca waqtigii loogu talagalay oo lagu soo doorto baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha dowladdaasi iyadoo loo marayo dastuurka federaalka ku-meelgaadhka ah ay muhiim u yihiin xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliya. Qoraal saxaafadeedkan waxaa si wadajir ah u soo saaray dowladaha Belgiumka, Denmark, Midowga Yurub, Ethiopia, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Norway, Sweden, Turkiga, Ingiriiska, Mareykanka, howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM iyo urur goboleedka IGAD oo ay wehelinayso qaramada midoobay. Khalid Aleli, Sahan TV.